injiilka sida Matayos u qoray cutubka 21 goortay Yeruusaalem ku soo dhowaadeen oo ay Baytfage galeen ilaa buur Saytuun markaasaa Ciise laba xera diray oo wuxuu ku yidhi tuulada idinka soo horjeeda taga oo kolkiiba waxaad ka helaysaan dameer xidhan iyo qayl la jooga soo fura oo ii keena oo haddii nin wax idinku yidhaahdo waxaad ku tidhaahdaan sayidkaa u baahan oo kolkiiba wuu soo diri doonaa waxaanu waa ku dhaceen in la arko wixii nebiga lagaga dhex hadlay markuu yidhi gabadha Siyoon u sheega bal eeg boqorkaagu waa kuu imanayaa isagoo qalbi qabow oo dameer fuushan iyo qayl dameereed markaasaa xertii tagtay oo sida Ciise ku amray ayay yeeleen dameertii iyo qaylkii ayay keeneen oo dharkoodii bay dusha ka saareen wuuna ku fadhiistay dadka badidooda ayaa dharkoodii jidka ku goglay qaar kalena laamo ayay geedaha ka soo jareen oo jidka ku goleen dadkii badnaa oo hor socday iyo kuwii daba socday waxay ku qaylayeen hoosaana ha u jiro ina Daawud waxaa barakadaysan kan Rabbiga magaciisa ku imanaya hoosaana ha ku jiro meelaha ugu sarreeya oo goortuu Yeruusaalem galay magaalada oo dhan waa kacsanayd iyagoo leh kanu yuu yahay dadkii badnaa ayaa yidhi kanu waa nebiga Ciise la yidhaahdo oo ka yimid Naasaret tii Galili Ciise wuxuu galay macbudka ilaa oo ka eriyey kulli kuwii macbudka wax ku iibinayey iyo kuwii wax ka iibsanayey oo wuxuu rogay miisaskii kuwii lacagta bedbedelanayey iyo kursiyadii kuwii qooleyda iibinayey wuxuu ku yidhi waa qoran tahay gurigayga waxaa loogu yeedhi doonaa guriga tukashada laakiin waxaad ka dhigaysaan god tuugo waxaana macbudka ugu yimid kuwo indhala iyo kuwo lugala wuuna bogsiiyey laakiin wadaadada sare iyo culimmada goortay arkeen waxyaalaha yaab kale ee uu suubiyey iyo carruurta macbudka ka qaylinaysa iyagoo leh hoosaana ha u jirto ina Daawud way cadhoodeen oo ku yidhaahdeen ma maqlaysaa kuwani waxay leeyihiin Ciise wuxuu ku yidhi haa miyaynaan weligiin akhriyin ammaanta waxaad ku hagaajisay afka ilmaha yaryar iyo caananuugga markaasuu ka tegey iyaga oo magaaladii ka baxay ilaa Baytaniya oo halkaasuu ku hoyday aroortii goortuu magaaladii ku soo noqonayey wuu gaajaysnaa oo wuxuu arkay geed berdaa oo jidka ku yaal kolkaasuu u yimid waxbana kamuu helin caleemo keliya maahee oo wuxuu ku yidhi hadda dabadeed weligaa midho yaynan kaa bixin oo kolkiiba geedkii berdaha ahaa wuu engegey xertii goortay arkeen way yaabeen oo waxay ku yidhaahdeen geedkii berdaha ahaa sidee buu kolkiiba u engegey Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay haddaad rumaysan tihiin oo aydnaan shakiyin wixii geedkii berdaha ku dhacay oo keliya ma aad samayn doontaan laakiin weliba haddaad buurtan ku tidhaahdaan ruq baddana isku tuur way noqonaysaa oo wax kasta oo aad tukasho ku baridaan idinkoo rumaysan waad heli doontaan oo goortuu macbudkii galay intuu wax barayey waxaa u yimid wadaadadii sare iyo waayeeladii dadka oo waxay ku yidhaahdeen amarkee baad waxan ku samaynaysaa oo yaa amarkan ku siiyey Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi aniguna hal baan idin weydiinayaa haddaad taas ii sheegtaan aniguna waan idiin sheegi doonaa amarka aan waxan ku samaynayo Yooxana baabtiisihii xaggee buu ka yimid ma wuxuu ka yimid xagga jannada mise dadka dhexdooda ayay iskala hadleen iyagoo leh haddaynu nidhaahno xagga jannada wuxuu inagu odhanayaa haddaba maxaad u rumaysan weydeen laakiin haddii aynu nidhaahno xagga dadka
dadka badan ayaynu ka baqaynaa waayo yooxana sida nebi oo kale ayay kulli u haystaan markaasay ciise u jawaabeen oo ku yidhaahdeen garan mayno isaguna wuxuu ku yidhi aniguna idiin sheegi maayo amarka aan waxaan ku sameeyo maxay idinla tahay nin baa 2 wiil lahaa wuxuu u yimid kii hore oo ku yidhi wiilkaygiiow aad beerta canabka oo maanta ka shaqee wuxuu u jawaabay oo ku yidhi dooni maayo laakiin kolkaas dabadeed ayuu isqoomamiyey oo aaday markaasuu wuxuu u yimid kii labaad oo sidii oo kale ku yidhi isaguna wuxuu u jawaabay oo ku yidhi waa yahay waan tegayaa sayidow laakiin ma uu tegin keebaa labadoodii doonistii aabbihii sameeyey waxay yidhaahdeen kii hore ciise ayaa ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay cashuur qaadayaasha iyo dhilooyinka ayaa idinka horgeli doona boqortooyada ilaah waayo yooxana wuxuu idinku yimid jidka xaqnimada oo waad rumaysan weydeen isaga laakiin cashuur qaadayaashii iyo dhilooyinkii ayaa rumaystay isaga idinkuna goortaad aragteen dabadeed iskama aydnaan qoomamayn si aad u rumaysataan maqla masaal kale waxaa jiri jiray nin oday reer u ah oo beer canaba beertay oo ood ku hareereeyey dabadeed god macsareed ka dhex qoday oo munaarad ka dhisay oo niman beerree ah u kiraystay oo dal kale tegey oo goortii xilligii midhuhu soo dhowaaday ayuu addoommadiisii u soo diray beerraydii inay midhihiisii u soo qaadaan markaasaa beerraydu addoommadiisii qabatay mid way garaaceen mid kalena way dileen mid kalena way dhagxiyeen haddana wuxuu diray addoommo kale oo kuwii hore ka badan iyagiina sidaas oo kaley ku sameeyeen laakiin dabadeed wuxuu u soo diray wiilkiisa isagoo leh wiilkayga way maamuusi doonaan laakiin beerraydii goortay wiilkii arkeen waxay isku yidhaahdeen kanu waa kii dhaxalka lahaa kaalaya aan dilnee oo dhaxalkiisa aynu qaadanee way qabteen oo beertii canabka ahayd dibaddeeda ku tuureen wayna dileen haddaba sayidka beerta canabkaa goortuu yimaado muxuu beerraydaas ku samayn doonaa waxay ku yidhaahdeen nimankaas bilaayada ah si baas buu u baabi'in doonaa beerta canabkaahna wuxuu u kiraysan doonaa beerray kale kuwa isaga siin doona midhihiisa xilligooda markaasaa ciise ku yidhi iyaga miyaanaydaan weligiin qorniinka ka akhriyin dhagixii kuwa wax dhisaa ay diideen wuxuu noqday madaxa rukunka tanu xagga rabbiga bay ka timid oo waa ku yaab indhahayga sidaa darteed waxaan idinku leeyahay boqortooyada ilaah waa laydinka qaadi doonaa oo waxaa la siin doonaa dad midhihii boqortooyada bixiya oo kan dhagaxan ku dhacaa wuu jajabi doonaa oo kan uu ku dhaco wuu burburin doonaa wadaadadii sare iyo farrisiintii goortay masaaladiisii maqleen waxay garteen inuu iyaga ka hadlay goortay dooneen inay qabtaan ayay dadkii badnaa ka baqeen waayo waxay u haysteen nebi